السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. maalin wanaagsan janagalayaal, sidoo kale ciid wanaagsan. halkani waa Iliad Wave Adjust. anigana waa Cabdullaahi Cali Aadan Cabdalla Gool. taariikhdu waa 29-ka bisha Juun 2023. fiidiyowgan waxaan uga hadli doonaa 1 hour chart euro aussie. طبعا chartigan waa 1 hour chart. euro aussie big picture markaan ka eegno, dabcan waa lacag muddo kusoo socotay 10 Agoosto bullish. dabcan jihada weyn tanfiiryada kala duwan waxyaabahaas oo dhan hadda meeshan kuma soo bandhigi doono, oo website-keena ayay ku jirtaa. dabcan numberiska halkaas ayay kala socdaan. markii aad sidan usoo gashidba lacagaha dhan intay ku jiraan, dollarkii oo kale halkan ay ku wada jiraan, hour chartiskoodii, 4 hourkii, dailygii, weekligii, yenkii sidoo kaleeto, crosseski sidoo kaleeto. hadda euro aussie ayaan dul taagannahay. marka euro aussie markaa sidan usoo gashid inta waxaad ka arkaysaaba xaaladdu suuqa ku sugan yahay technicalka markii loo eego. this one waa halkii sano u dambeeyey suuqaas jihada uu ku wajahnay. chartiga normalka ah caadigaana marka waa kuwana. hourkii waa kana, waa bullish, waa lasoo update gareeyey. 4 hourkii waa kan, sidoo kaleeto dailygii iyo weekligiiba. laakiin intermediate degree-ga weeyaan waxaa hadda ku jirnaa oo suuqa waa bullish. laakiin time ka sareeya marka aragtid waxaa macquul ah in xaalad kale oo suuqa ku jiro. already waxyaabahaas oo dhan u faahfaahsan website-ku ay ku jiraan. laakiin focuskeena maanta waa short termkii iyo 1 hourkii xaaladda uu ku sugan yahay, iyo meelihii uu awal soo maray, iyo qaabkii aan uga falcelinay, iyo memberskeena qaabkii ay u qaateen. waxyaabahaas ayaan ku sharaxayaa. next group waa crosseski oo qaabkii aan rabnay ku socdaan. euro aussie 1.58 timaado fursad ayaan ka baara doonaa insha Allah. way for intermediate degree, lacagta afraad oo ay indhaha ku helno waa iyada ay si fiican aan yiraahdaa meel ugu calaamaysan insha Allah. dabcan wixii ka dambeeyey April suuqa correction ayuu ku jiray. correctionada ay kala duwan ay leeyihiin sidaan naqaano. this one marka waa 7 swing, ama sida caadiga loo yaqaano double tree. waxaad arkaysaa sida inta ka muuqata in 3 dhaqaaq suuqa uu kusoo daatay, connector uu abuurtay, anada 3 dhaqaaq sidan uu sameeyey. double tree iyo ruleskiisii waxyaabahaas oo dhan qofka u baahan wuxuu ka heli karaa qaybtan resourceska. Iliad Wave Theory ayaad gelaysaa, correctionada, ruleskooda, imbalsiyada, waxaadna halkaasaad ka heli kartaa qofka basic ah. laakiin intiinaga caadiga ah ayna la socota oo yaqaana basiga, sidoo kale ardada education soo qaadato oo advanced-ka ah way dareemayaan waxyaabahan oo dhan. euro aussie marka dabcan fursaddan waan qaadanay qaybta live trend roomka. aad tagtid halkan ayaa waxaan soo gelinaynaa iyadana warqad journal ah oo trade-yadii ku cad yihiin, kuwa inoo furan, kuwa aan sugin, kuwa aan weli la qaadan oo soo dhow, kuwa la qaatay oo risk free-ga aan nahnay sida hadda euro aussie oo kaleeto. waxyaabahaas oo dhan euro aussie waxaan ka qaadanay this area 1.58. suuqa ilaa hadda profitka inoo wadaa wax ku dhow 700 oo bib ayuu weli sii socdaa. welina targetkeeni ma dhowo oo maxaa la yiraahdaa waxaan u soconnaa masaafo dheer insha Allah. suuqa dabcan si straight line kuma socdo, wuxuu ku socdaa qaab ah inuu move sameeyo oo uu soo nasto another move sidaas oo kale. hadda meeshan cycle ayaa ku dhamaaday. marka muddada suuqa uu soo socday bisha inta lagu jiray June 20 bil u dambeysay. hadda nasiino yar oo soo qaadan doonaa si uu suuqu dib ugu bilaabo in uu buulishtiisii kor u sii wado. follower markaad tagno marka waxaan arkaynaa in suuqa weli haygan uusan jabin oo weli masaafo usii dhiman tahay.
dabcan laakiin markuu xaaladan oo kala maraayo ma ahan meel oo laga trade gareeyo suuqa oo meel riskigeeda wadata dabcan dad waxaa jira meelahan dhexe iska galaan iyo waxyaabahaas oo dhan iyo qaabka anaga ku qaadan rulis ay leeyihiin oo hadda qof iska geli karta malahan trade-kan meel dhexe qof ka qaadanaysa malahan laakiin haddaad adii system kale isticmaashid ma sheegin oo fursad ku siinayo laakiin hadda jihada suuqa dabcan waa bullish welina inay sii socotaan ayaan rajeynaynaa correctionkan markuu dhammaaday waxa euro aus ay heshay taageero fiican oo buyers badan ayaa soo raaceen welina way sii wadi doonaan insha allah ilaa highgan laga sii jabiyo waa ay sii socon doontaa videogani gabnaa maanta waxaan ugu hadlaynay euro ausi wax kalena ma ahayn ama analyze dheer iyo faahfaahin dheer kuma soo qaadanayna videoga oo waxaan sheegaynay keliya ama aan tusinaynay ardadeenna iyo memberska kale ee kor nagala socda suuqan inuusan ahayn wax iskaga dhacaya maxaa la yidhahdaa kadis sidaa la socotaan uu yahay wax dabcan u baahan cilmi si aad directionkii suuqa u heshid adoo systemay kala duwan isticmaalaya dabcan systemka ugu fiican suuqa trendigiisa loogula socdo waa wayfiska laakiin wayfiska ayaa sii kala advancedsan yahay macnaha asagaa sii kala sareeya wayfiskii ugu dambeeyey haddii aad rabtid iyo qaabka aan anaga suuqa u arkeyno waxyaabahaas oo dhan iyo fursadahan dhaadheer qaabkaad uga faa'iidaysan lahayd insha allah waxyaabahaas oo dhan haddaad diyaar u tahay waxaan kugu soo dhaweynaynaa bahda Elliott Wave Adjusting usoo dhawow oo tiimka ka mid noqo insha allah oo cilmigaaga kororso sidoo kaleetana suuqa dadka kale siday u arkayaan si ka duwan kana fasiixsan kana qurux badan kana degan oo aan walwal lahayn uga faa'iidayso tradeadaada adoo maalin kasta nalada hor fadhinin oo kaamilka boodaaba raacinin system fadhiya ayaad heli doontaa insha allah oo qayb education leh ayaa inoo jirta oo cilmiga wayfiska dhan lagu baraya asagoo complete ah qaybtan kaleetana oo subscription-kana waxa weeyaan inaad lacagihii jihadooda la socoto maalin kasta meeshuu suuqu u socday short termkii long termkiiba dabcan qofka traderka ah wuxuu u baahan yahay community oo ku xirmo inta qol isku soo xirsada keligaa ani unbaa trade gareynaya ani unbaa si wax u arkaya haddii aad dhahdid xoogaa oo aan suuqii khibrad badan u lahayn way kugu adkaanaysaa suuqa waxaa jira dad badan oo kaaga horeeyey mentors fara badan heli kartaa dad adig kulamida oo xaaladda maraysid marayaan ayaad heli kartaa waxaa loo baahan marka dadkaada inaad ka dhex bixin oo aad ku dhex jirtid xindaabkaas haddii kale waa ka niijabaysaa suuqa dadkii hadda suuqaan soo bilaabay 3 sano ka hor 4 sano ka hor dad badan iskaga hareen soo ma hal sano ka hor qaar baa iskaga hareen waa la kala haraya marka dadka ugu horeeya 6 bilood ay ku haraan dadka ku xiga waa 1 sano 2 sano 3 sano qayb badan harta 5 sano qayb kala sii harta kadib ayaa loo sii gudbaa xaaladaha kala duwan marka adiga xaaladda maraysa dabcan adiga og si aadan ugu harin suuqa oo aad dhiirigelin fara badan aad ugu heshid asxaabtaada aad ku dhex jirtid oo suuqii aad niyad u heysid cilmigaagana aad sii kororsatid aad suuqana lacag ka samaysid adoo aqoontaada kaashanaya waxaad u baahan tahay meel aad ku xiran tahay oo aad mentorka helaysid suuqa sidaad u arkaysid asxaab kaloo arkaysa marka waa sida ugu fiican oo aad maxaa la yidhaahdaa aad ku joogtayn kartid inaad trader sii ahaatid marka insha allah fursadahan markii aan qaadanaynay iyo waxyaabahaas oo dhan ayadayna fideoyadii ka horeeyay sababtoo ah fursad inta la qaadan waxaa jira waqti badan oo ka horeeya soo maaha oo suuqii lasii ogaado xaaladda uu ku jiray oo fideoya weekendia lasoo geliyaa sida live baa lasoo geliyaa waxaasoo halkaas ayaa kala soconaysaa sida hadda example marka euro ausi oo kaleeto waqtiga aan qaadanaynay fideogeedii weegaas aan qaadan rabnay inta uu suuqa lasoo gaarinba ka hor fideogeedii halkan ayaa soo geli doonaa insha allah correctionada iyo waxyaabahaas inuu barto sidoo kaleeto double tree videogiisa dabcan youtube ayuu ku jiraa isagana halkan ayaa idiin soo dhigi doonaa oo qaybtan sare ayaad kala socon doontaa insha allah marka videogeenii koobnaa halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa ciid wanaagsan janna galaya subashii barwaaqa alla nagu gaarsiiyo ciidan ciideeda kale aad baad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu